بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وحير إلى دعوتان كان خوارجك dhufayska iyo caafimaadka iyo badbaadada iyo nabadgelyada iyo wanaaga dheef adduunyo himid aakhiraba gacanta ilaahay kaliya ku jirta subhanahu wa ta'ala. Mura la'aan nabi maxamedna wuxuu leeyahay tajriidul mutaabacati وصدى وتنسام في العيو نكان يكون لمدك يا خوارجتا waxaan leeyahay intaan in lamida asxaab rasuulillaah nabiyullaahi maxamed bay weydiisteen nabiyullaahi maxamed in bari qiyaamaha uu shafeeco way weydiisteen horaan soo sheegnay aynu qataada horaan soo sheegnay saxaabigii isha ka dhacday oo rasuulku ugu celiyo iyo rasuulka isha ugu celi horaan soo sheegnay waxa jiray sidoo kale aan hore u soo sheegin saxaabi kale oo cadda ku dhacday oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam gacanta ka mariyay oo daaweeyay oo caafimaday oo jirkiisu uu noqday barafuun islaamihiisa xataa ay kala masayreen waxa jira saxaabi kale oo indhool ahaa oo rasuulku u yimid sallallahu alayhi wasallam oo yiri rasuulka ilaahay indha u baahna oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam oo baray ducadii qiimaha badnayd ee tawassulka waxaas oo dhan asxaab rasuulillaah baa sameeyay saxaabigii jannada weydiisana waxaas oo dhan waa ka soo hadal inta ninka hadda uu sheegay oo dhan ilaahay inuu adduunyada iyo aakhirada labadaba leeyahay qof shaki uga jira male mulkiga adduunka cid ilaahay kuma haysato mulkiga aakhirana ilaahay cid kuma haysato laakiin adduunyada ilaahay kuma raaxaystay makhluuqiisa ku raaxaysta aakhirada ilaahay kuma raaxaystay makhluuqiisa ku raaxaysta sidaas darteed makhluuqu in dhexdoodu ay wax isweydiistaan wax ilaahay agtiisa mamnuuc ka ah ma jiraan qofka kale wax uu ku dhaamo inuu weydiisto way u banaantahay laakiin adinku khawaarijay hadii la raaco wadadiina laba arrimood midka aad tihiin la garan maayo dad waalan inaad tihiin oo miyir qabin iyo dad diinti aanan waxba ka garanayno ujeedkooda kaliya ay tahay diinta inay burburiyaan xaqiiqadana waa labadooda la isku daray baatiin dad waalanna waa tihiin dad diinta burburinayna waa tihiin sababtoo taa waxaad leedihiin ilaahay qeyrkiisa in wax la weydiista waa shirki waa ilaahay oo yacni wax lala wadaajiyay waxaan idiin sheegnay asxaab rasuulillaah inay nabiyullaahi maxamed wax weydiisteen waxaad tidhaahdeen hadalladiina ah nebi maxamed xilligaas wuu noolaa laakiin hadda nebigu waa dhintay bal inaa caqli xun tihiin nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh markii uu noolaa ma shirkigiibuu raalli ku ahaa oo marka uu nebiga nool yahay shirkigu waa bannaan yahay miya marka uu dhintana shirkigii ma bannaano miya dad waalan inaad tihiin oo caqli liita inaad tihiin intaas ku ogaada haddaad miyir qabtaanna dad diinta islaamka burburinahay inaad tihiin sidaas ku ogaada sababtoo diintu isma bedesho nebi maxamed noloshiisa iyo geeridiisa midna diintu iskuma bedesho hadduu nool yahayna diintu waa diintii nebi maxamed hadduu dhintana waa diintii nebi maxamed shalay nebigu wuu noolaa hadduu noolaa salaadda waa la tukanahay miya hadduu dhintana salaadda waa ka tegaynaa miya dee macnaha ma keenayso rasuulka geeridiisa iyo noloshiisa wuxuu rasuulka noo keenay ilaahay baa nafara wuxuu yidhi wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu rasuulku wuxuu idinla yimaada qaata baa ilaahayna leeyahay idinkuna waxaad leedihiin rasuulku wuxuu idinla yimaaday waa beena ka taga marka uu dhintay wixii ah oo dhan waxba kama jiraan ma ilaahay baan warkiisa qaadanaa mise adinka kiinaan qaadanaynaa ilaahay baan qaadanaynaa subxaanahu wa tacaala waxaad leedihiin ilaahay qeyrkiis baad wax weydiisanaysaan haddaba aayadaha qur'aanka iyo waxyi cidda uu ku soo degahaya yay ahaayeen soo nabiyullaahi maxamed ma ahayn aayaddan maalin walba aad soo qaadataan oo ummadda aad ku xuuxisaan nebi maxamed bay ku soo degtay oo ilaahay uu leeyahay waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum ilaahay wuxuu leeyahay aniga barya waa in ajiibahayaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii aniga qolada baryadayda iska kibrinaya iyo cibaadadaydu sayadkhuluuna jahannama daakhiriin waxay gelahayaan jahannama wayna ku waarahayaan haddaba nebi maxamed wey salawaatullaahi wasalaamu caleyh midka barhaya asxaab rasuulillaah inuu ilaahay leeyahay aniga barya waa in ajiibahayaa ciddii baryadayda iyo cibaadadayda iska kibrisana haddaba naar bay ku waarahayaan nebi maxamed asagoo og aayadda qur'aanka miyuu raalli kaga noqday asxaab rasuulillaah inay asaga wax weydiistaan maadaamaad adinku u aaminsan tihiin nebi maxamed makhluuq weeyo waxba kuma tari karo marka sidaas darteeda asagaas haddaa wax weydiistay ilaahay baad u shirkisay marka nebi maxamed ma shirkiibuu raalli uga noqon lahaa ilaahay asagoo dhahay war aniga wax weydiista miyuu raalli uga noqon lahaa inay asaga wax weydiistaan ma nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh diintii loo soo diray oo waxyiga lagula soo dejiyey miyaad adinku uga aqoon runtihiin oo na leedihiin maanta nebi maxamed cid wax weydiisan kartaa male nebi maxamed se ma ka haysaan inuu yidhi inta aan noolahay basaa wax la weydiistaaye markii aan dhintay waxba la ima weydiisto xadiis iyo aayad midna ma noo haysa ilaa aayaadka ilaahay wuxuu noo sheegay wamaa aataakum rasuulu fakhuduuhu rasuulku wuxuu idinla yimaada qaata baa ilaahayna yidhi nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu caleyh meeluu ku yidhi aniga intaan noolahay wax waa la weydiisan karaa markii aan dhintana waxba la ima weydiisan karo hal xadiiso xataa daciifa keena
ma soo helaysaa mana haysaan. haddaba diinta islaamkaad ku dhex waalateene ka fariista iimaanka allah inka qaade. dadkana ha wareerinina, shacabka ha wareerinina, adinkaa wareersan oo diinta idinka wareertay. wax shirki la yidhaahda ma jiraan, ilaahay keyrkiis wax caabudana ma jiraan. qaybtan waa qaybtii saddexaad insha allahu tacaala way socon doontaa raddiga ninkan khawaarijka ah iyo wax la midka ah insha allahu. maalmahan waa mashquulay insha allahu waan soo wadi doonaa. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.